السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دولة لونتاي iyo taariikh luntay. dowladda Cusmaaniyiinta waxa aasaasay ninkan loogu magac daray ee ah Cusmaan al-Juurul. waxa la aasaasay 1299 waxa si rasmi ah u duntay 1923 waxaana ay talinaysay muddo 6 qarni ku dhow. hadday mar labaad soo laabato waxay noqonaysaa dowladda saddexaad ee ugu dadka badan adduunka Shiinaha iyo Hindiga kadib. caasimadooduna waxay noqonaysaa Istanbul toodii hore. waxaana soo hoos galaya dowlado fara badan oo adduunka haddeer quwad u sheegta. waxaa lagu rajo yahay inay soo laabato dowladda Cusmaaniyiintu aanay albaabada isugu laabto dhammaan dowladaha jira oo dhan oo dhammaan laga dhawaaqa tawxiidka dunida dacaladeeda oo dhan. waxaa jabiyay dowladda Cusmaaniyiinta dadkii hoos harsanayay qaar ka mid ah ayaa qoriga u halabsaday oo la diriiray. ma yahayn dowlad kaliya laakiin waxay ahayd taariikh muslimiinta u soo hoyatay oo baal dahaba leh. ma jirin taariikhda islaamka taariikh soo martay oo taariikhdan haddeer muslimiintu marayaan ka hooseysa. waxaa iswareystay bari nin qarba jooga iyo nin ah qolqol joog. dadna kii kale waxa uu ku yiri war ka waran dalka Soomaaliya. waxa uu ugu jawaabay war dalka Soomaaliya waa burburay. markaasuu ku yiri war ka waran macallimiinta iyo askartu wax ma khiyaamayaan. markaasuu ugu jawaabay ma khiyaamayaan. markaasuu yiri war dalkaas waa dhisan yahay mar haddaan labadaas wax khiyaamayn. sheekadan wax laga qaadanayaa haddii dalka ay aqoontu u dhisan tahay inaan weli burbursanayn oo ay weli jirto adduunna waa aqoon. see u dhisi karaa dowladda Cusmaaniyiinta kale? see u dhisi karaa tii Cuthmaan? see u dhisi karaa tii Abubakar? see u dhisi karaa tii Nabi Maxamed? dhammaan su'aalahaas waa su'aalo ka dhex guuxaya qof kastoo muslina oo dhalinyaro ama weyn oo fekeraya. in dal la dhiso waxaa ka horeeya in la dhiso dad, waayo asalka iyo faraca waxaa horeeya asalka. odaybaa waxa wareeriyay inankiisii yaraa, dabeedna si uu isaga jeediyo ayaa waxa uu dhiibay waraaq ay ku sawiran tahay qariirad dhinaca kalena gacan. wuxuu ku yidhi isku soo hagaaji. 5 sekin kadib waa uu keenay. dabeedna wuxuu ku yidhi sidaas ugu soo hagaajisay. wuxuu ku yidhi waa wax fudud, gacanta dhinaca kale kaga taala baan isku hagaajiyey. halkaa wax laga qaadanaya haddii dadku hagaago dalkuna waa hagaagayaa, waayo dadkiiyo dalka adduunka waxa u soo horreeyay dadka. waynu awoodnaa inaynu samayno dowladda Cusmaaniyiinta iyo mid ka weynba, laakiin inagan u bisleen oo diyaar ahayn. waar bulshadan qof kasta kaalin buu kaga jiraa, qof kasta waxbuu ka yahay. qof kasta hadduu hagaajin lahaa kaalintiisa wax kasta waynoo hagaagayaan, laakiin kaalintii baynu hagaajin laanahay oo madaxweyne bay sugaynaa ama wasiirnimo. sheekh Mustafa waxa laga hayay hadday cilmi doonaysaan facalaykum bilcilmi, hadday ciyaal doonaysaan facalaykum bilcilmi. warana haddeer waxaan leeyahay haddaad doonaysaan dowlad facalaykum bilcilmi. war dagaalku waa laba, waa dagaal face to face iyo dagaal la dhaho dagaalka caqliga. dagaalka caqligana muhiimsan waana ka isticmaali jireen nebiga, asxaabtiisa iyo kuwii ka dambeeyay ee muslimiinta ah oo dhan. kaasaana muhiimsan. quraanka ilaahay baan ku soo aroray caqligu afalaa tacqiluun afalaa tadakkaruun afalaa tasmacuun. marka maxaa laynooga baahan yahay inaynu caqliga weelayno, inaynu raacno intay diintu raacday in la mid ah. وأنا walaalkin Cali Faa'iido. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.